Sacuudi Carabiya ayaa maanta qaaday dhammaan xayiraadihii saarnaa isticmaalka hawadeeda, taas oo u muuqata inay tahay astaan ay ku wanaajinayso Israa'iil ka hor booqashada madaxweynaha dalkaasi Mareykanka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa soo dhaweeyay go'aanka taariikhiga ah oo ah tallaabadii ugu dambeysay ee wanaajinaysa rayidka uu qaado. Maamulka duulimaadyada rayidka ee Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay in hawada Sacuudigu ay furan tahay diyaarad kasta oo ka soo baxda shuruudaha isticmaalka hawada. Go'aankan ayaa la qaaday si loo kordhiyo dadaalada boqortooyadu ay ku xoojinayso booskeeda inay tahay marin isku xira 3 qaaradood. Go'aankan wuxuu ka dhashay diblomaasiyadda joogtada ah ee madaxweynaha oo ku wajahan Sacuudiga oo muddo bilo ah laga shaqaynayay, taas oo miro dhalkeedu uu noqday booqashada. Waxaa sidaas yiri la taliya amniga qaranka dalka Mareykanka ka hor booqashada Biden ee bariga dhexe uu Arbacadii ka bilaabay Israa'iil. Washington ayaa tusmaysay inay dalal kale oo Carab ah ay qaadi karaan tallaabooyin ay xiriir kula sameynayaan Israa'iil. Sacuudigu ma aysan muujin wax diidmo ah oo ku wajahan markii dalalka ay xulufada yihiin ee Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ay xiriir la samaysteen Israa'iil 2020, taas oo qayb ka ahayd heshiiskii. Hase yeeshee, falanqeeyayaasha siyaasadeed ayaa sheegay inaysan u muuqan in Riyaad ay xiriir la yeelan doonto Israa'iil inta lagu guda jiro booqashada Biden ama inta uu wali xukunka hayo Boqor Salmaan oo ah 86 jir. Biden ayaa goor dambe oo maanta ah gaaray magaalada Jeddah ee Sacuudi Carabiya, inkasta oo uu horay wacd ugu maray inuu boqortooyada ka dhigi doono guddoon sababo la xiriira dilkii wariye Jamaal. Wuxuu si toos ah ugu safri doonaa Israa'iil isagoo noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykan ah oo duulimaad toos ah isaga gudba Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya. Go'aanka maanta ka soo baxay Sacuudiga ayaa si buuxda u qaadaya in xayiraadihii diyaaradaha Israa'iil ka saarnaa inay ka adeegsadaan hawada Sacuudiga. Israa'iil ayaa muddo cadaadinaysay inay ka adeegsato hawada Sacuudiga si ay u soo gaabiso waqtiga safarada diyaaradaheeda oo u safra dalal badan oo Aasiya ah. Mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa sidoo kale doonaya in mas'uuliyiinta ku nool Israa'iil ay si toos ah uga degaan Sacuudi Carabiya, waxaana hadda khasab ah inay dal saddexaad soo maraan, taas oo ku badin karta qarashka.